Assalaamu calaykum asxaabta ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee sheekada sirdoonka Soomaaliya. Sheekadan waxaa qoray Farxaan Xirane oo ka mid ahaa sarkaal ka tirsan ciidamadii nabad sugidda ee NNSta. 27 Julaay 1983 gelinkii dambe waxaa jaamacadda ummadda ka socday dood cilmiyeed looga hadlayay qabyaaladda iyo qaranka, waxaana ka qayb galay madaxweyne Siyaad iyo wasiirkii tacliinta sare ee Dr. Cabdiqaasin Salaad oo madaxweynihii dowladda ku meel gaarka noqday 2000 ilaa 2004. Anigoo akhrisanaya sheeko dhambaaleedkii naxariista ee qoray Yaasin Jaamac Falax waxaa ii soo galay hooyaday oo daal ka muuqda qolkii fadhiga ahaa guri aan ka dhistay hanti qaran. Hooyaday waa markii ugu horeysay 6 bilood aan gurigaasi lahaa iigu timid iyo markii ugu dambeysay. Allow adduun iyo aakhiraba ku dhowr. Intaan markiiba istaagay ayaan xaaskii weydiistay inay hooyo soo martisoorto marxaba iyo guddoon. Wax yar kadib sooriyo gobanimo waa casar oo cabitaan iyo shaah carfaya ayay marwadii guriga soo qotomisay. Hooyo intay dhoortay ayay tiri, hooyo anigu waan ka soomanahay. Intaan buuggii aan gacanta ku hayay dhinac isaga dhigay ayaan iri, hooyo soo annaga hadda maqribka tukanay. Waxay igu jawaabtay hadal eryo aan ku suguutiyey lahaanshihii aqalkaas. Hooyo xaaraanta mugdi iyo maalinba waa la iska dhowraa. Hadalkeedii iyadoo sii wadan ayay tiri, hooyo inakeen. Markiiba intaan shaar soo gashaday ayaan macawistii xidhnaana dibadda ugu soo raacay. Hooyo maalinta lagu dhuldhigo oo lagu weydiiyo xaggeed ka keentay xoolahan, hooyo maxaad ku jawaabay? Werwer iyo walaac ayaa nafteydii hareeyay. Aqalka wuu qurxanaa. Hooyadayna anigoo maqlaya ayaa ilaah ka bariday inuusan gurigaasi iyo xoolo xaaraan ahba dheef iiga dhigin. Halka ay hooyaday wax ka arkaysay kamaan arkayn, oo aniga waxaa ii muuqday dhalanteedka adduunye iyo iska dhicinteeda iyo labarantanka asaageygii waddadii qaadayna inaan aniguna qaado. Xalaashi iyo xaarantana sumad iima kala lahayn dharaarahaasi ka hor. Aqalkii aan ka dhistay musuqmaasuqa curyaamiyey dalkeena kumaan ladin. Gu'barkii markaan ku raxleeyay ayay hooyo galab gacanta iga soo qabatay. Habeen dambana uma hooyan. Waxayna maalinba sheeko murugo iyo cabsi digniino xambaarsan oo qur-aanka ka wariyey maalinta qiyaamaha igu laabkicisaba. Ugu dambeyn waxaan yaqiinsaday inuu aqalkaasi yahay jidka jahannamo loo maro. Waxaana u dhiibay waraaqidihiisa lahaansho, waxaana si niyad ah u oggolaaday inay hooyo aqalkaasi siday doonto ka yeesho. Ku dhawaad 10 sano ayay hooyaday gurigii kiradiisa ku masaruufi jirtay dhowr qoys oo ogoon ahaa. 1991 markii qaranjabku dhacay ayuu gacanteeda ka baxay. 1995 ayuu mar kale ku soo noqday gacanteeda. Wax yar ka hor inta uusan cadowga Soomaaliya Itoobiya xoog ku qabsan Xamar ayay dareentay inay dhanka aakhira u dhawaatay. Hooyaday waxay marsiisay gurigii siday kula taliyeen culamo Soomaaliyeed, wuxuuna ahaa dhulka kaliya aan ka yeeshay. Haatan Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku leeyahay 2 mitir ee la idhigi doono haddii aan ku geeriyoodo marka uu malagaygi galo. 28 Julaay 1983 maalin kadib markay wax aqoonka jaamacadda si cilmidaysan u baareen qabyaaladda iyo qaranka inaysan wada socon karin, wuxuu tali xigeenkii oo markaasi sii haya ahaa ii dhiibay tixraac iyo tusme guri ku yaalay xaafadda Shirkool. Wuxuuna igu yiri waxaa ku shiraya rag u badan dhalinyaro dibadda waxbarasho ugu soo noqday iyo qaar ka baxay jaamacadaha dalka. Kulligood waa isku qolo waana kugu qoys. Kulankooda waa caawa siday ku balameen. Jaale waxaan caawa jiraa gurigayga Madiina. Waxaan u gartay waaga yuusan kaa baryin taliye, sidaas waaye. Waxaan sii maray Villa Soomaaliya. Shalay galab ayuu madaxweynaha joogay jaamacadda ummadda oo uu dahfuray dood cilmiyeedkii labaad kuna saabsanaa qabyaaladda iyo qaranka. Saraakiil la socotay ayaan ka qaatay warbixin kooban. Kadibna waxaan soo aaday gurigii hooyaday. Anigoo degdegsan ayaan u soo galay hooyo. Salaan iyo bogaadin kadib waxaan u sheegay inaan caawa ku soo raagayo howlo qaran. Gaariland Guruusal cusub, aqoonsi shacabna leh anigoo wata ayaan istaagay aqalkii ku shirsanaayeen dhalinyaradu. Waxaan isku mar soo istaagnay ganjeelka. Ninkii soo agaasimay isugu yeeray dhalinyarada ay isku reerka yihiin, wuxuuna ka mid noqday darsinkii ra'iisul wasaarayaashii 2000 iyo 2014. Raggii meesha isugu yimid oo intooda badan naga soo horeeyay waxay u fahmeen inuu mudanaha abaabulka waday igu casuumay fadhiga. wax yar kadib
waxaa furmay hadalkii. Isku dubaradihii ayaa yidhi, waxaan idinku yeeray inaan ka shaqayno una midowno danta beesha. Dhallinyaradaasi waxay dowladda ugu deeqday gaadiidka, taleefanada iyo kirada halka ay ku shirayeen. Isla habeenkii 28 Julaay 1983 markuu dhammaaday kulankii ay dhallinyarada ka baxay jaamacadaha una shiray dan qabiil kana durugsan qaran iyo qiimihii, ayaan anigoo buuginaya Land Cruiser sumad shacab leh oo laga lahaa Villa Soomaaliya soo horjoogsaday gurigii taliye-xigeenkii oo xaafadda Madiine meel kaga yaalay. Ilaaladii ayaan fariin u dhiibay sheegaysa xiirane waa yimid. Markiiba waxaa isagoo tallaabo dheeraynaya igu soo noqday madaxii ilaalada taliye-xigeenka. Soo gudub Jaalle ayuu igu yiri. Markiiba waxaan ugu tagay qolkiisa fadhiga oo aad moodda hoteelada Jannada basaasiinta Lanaarka Qobrus ku yaal. Jaalle inkastoo ay aqoonteedu dhaafsaneen iskuulada KGB-da ee nabadgelyada sida loo dhowro, haddana igama muuqan ragga caawa la fadhiistay maskax gaarsiisan darajo aqooneedka jaamacad. Waxayna ka hadlayeen kuna mashquulsanaayeen qoys iyo siday culeys ugu saari lahaayeen wasiirkii arrimaha dibadda in loo diro tacliin sare oo dibadda ah. Dhallinyarada reerka waa dhaqan khatar ku ah jiritaanka qarankeena. Jaalle waxay dhallinyaradaasi dhaqaalaha guriga ay fadhiisteen, gaadiidka iyo isgaarsiinta ugu deeqay wasiirka. 10kii sano ee u horeysay waaxdii nabad sugidda NNSTA waxay qaaday tallaabooyin ay kula tartantay laamaha asaageeda ee dunida ka jira, adeegsiga magacyo qarsoon, dhexgelidda xudumaha dowladaha aan cadowga nahay iyadoo loo marayo hanaan fahamkiisu ku adag tahay qofka caadiga ah. Waxayna laantu dhex istaagtay xafiisyada Itoobiya oo gumaysta dhul Soomaaliyeed qayb ka mid ah, iyadoo la adeegsanayo saraakiil Soomaaliyeed laakiin huban haybad kale. Inkastoo ay laantu xirfad muujisay, gadaal waxay isku rogtay wiriiri ama jilac. Shacabka Soomaaliyeedna marada u dhexgalay caburinta, dabagalka, kii laga shakiyaan hoos u diridda, boobidda hanti qaran iyo guud ahaanba jidkii ilaalinta dalka oo loo leexiyay ilaalinta madaxda. Danuubtaasi laga dhurtay shacabka Soomaaliyeed. Miisaanka qaar badan ayaa iigu darsamay. Ilaah ayaana weydiistaa mar waliba inuu iga cafiyo.